Somaliland sakalogu tagayo nabada haligina siyo no society nabada haligina siyo no society nabada Somaliland sakalogu tagayo nabada haligina siyo no society nabada haligina siyo no society nabada kulanti wacan wanaagsan idilkiinba akhyaarta aanu hawada ka wada socono meel joogtaanba ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aanu idinka diyaarinay dareenka bulshada iyo aragtiyahooda kala duwan ee ay ka qabaan xukuumadda cusub ee dhawaanta la filayo inuu soo dhiso madaxweynaha cusub ee dhawaanta loo doortay dalkani jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici taasi oo ay bulshadu aad ugu dhagtaagayaan xukuumadda cusub ee la soo dhisaya sida ay u eegaan doonto daawadayaal waxa aad la socoteen in dadweynuhu maalmihii u dambeeyay baraha bulshada saxaafadda goobaha la isugu yimaado ay afkaartooda ku dhiibanayeen in madaxweynaha cusub soo dhiso dawlad kooban oo tayo leh aynu dul istaagno dawlad kooban oo tayo leh waa laba eray oo ka turjumaya dareenka dadweynaha kooban waxa ay ka wadaan in la yareeyo shaqooyin isku wada sidkan oo markaa irbad kor loo qaadaba fiis hebel uu yiraahdo waa la isoo farageliyay waxa kale oo iyana ay uga dan leeyihiin in la yareeyo kharashaadka iyo miisaaniyadda tirada badan ee ku baxda golaha xukuumadda tayale haddii aynu cabirno waxa ay ka wadaan dad garanaya waxa loo diray iyo howlaha loo cimaamaday bal haddaba aynu milicsano dareenka bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka qabaan xukuumadda cusub ee la filayo in uu soo dhiso madaxweyne Muuse Biixi Cabdi iyo xukuumaddaasi sida ay jeclaan lahaayeen inuu u soo dhiso madaxweynuhu inuu sixirbararka naga jabiyaanu doonaynaa waxaanu doonaynaa ee kale inuu maxay aniga odagaygu waa askari 9 caruura ayaan dhalay 9 caruureen dhalay lacagtii Soomaaliland markaan soo qaato xalliye waxay ii qabanaysaa noo qabanaysaa ma jirto aniga iyo ciidanka militariga iyo ciidan walba marka waxaan doonaynaa inuu madaxweynuhu wixii uu ballanqaadkii uu noogu ballanqaaday inuu naga jabiyo cadaalad iyo sinaan inuu noola yimaado inuu shilinka Soomaaliland uu quweeyo quwad u yeelo dollar baa wixii lagu dhufanayaa dollarkina waxa la wuxuu noo qabanayaa ma jirto dawlad kooban inuu soo dhisaan kula talinayaa oo waxan oo wasiire iyo waxan oo la taliyaa iyo waxan oo waxa qarankii oo hadii beed maayo dhaqaalihiis ku baabaayo inuu soo koobo oo dawlad kooban oo qurux badan oo wanaagsan oo duuban dhisto awalan horta anigu waan u ducaynayaa hambaliyadu madaxweynaha way ka badatay waan u ducaynayaa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxaan leeyahay ilaahay xilka kugu asro ilaahay idankii dawlad wanaagsan oo cadaalad iyo islaamnimo iyo walaalnimo iyo ummadda isku wada haysa ayaan rajaynayaa inuu madaxweynuhu soo dhiso horta hawl badan baa u taala madaxweynaha la doortay runtii ugu horreyn waxaan leenahay ilaahay ha fududeeyo xilka loo egmaday iyo hawsha badan sugaysa dalkan problemskiisu aad buu badan yahay haddii xagga dhaqaale socially iyo horumarba marka waxaan filaynaa horta in culays kala saaro job opportunity job creation iyo economic magaalada dhaqaale la abuuro taasoo loo baahan yahay in la sameeyo teamkii aqoonta u lahaa garashada u lahaa waxaan khibrad iyo u lahaa waxaan arrimaha la xidhiidha noocaasa
waxyaabo badan baa yaalla halkan u baahan in wax laga qabto dalka abaar baa ka dhacday ba'an oo dadkii xoolihii way ka baxeen waxaa dad badan baa cayroobay dadkii waxay ku noolaayeen 50% xoolaha in arrinkaa hoos loo eega oo magaranaysaa dib loo eega aad bay muhiim u tahay challenge ku badan yahay hadday tahay xagga shaqo abuurka hadday tahay xagga security hadday adag tahay xagga infrastructure-ka iyo in dalkii la abuuro magaranaysaa wixii lagu abuuri lahaa shaqo ta kale ee aad u sii adag ee dalkan hortaala waxa weeye shaqo la'aanta madaxweynaha la doortay jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi dadku waxay ka filayaan dawlad yar oo kooban oo tayo leh oo ay ku jiraan dad ammaano leh diin leh ikhlaas leh tashiilka yaqaana hawlkara oo ilaahay karti ku manaystay oo ummadan u shaqeyn kara saacado fara badan wasiiro aan ka shaqeysan sababtoo aynu arintaas shacabku ay uga rabaan madaxweynaha uga filayaan madaxweynaha waxa weeye dadkana way soo arkeen dawlad fara badan waxa ku dayacmayna way arkeen dhaqaalaha ku lumayna way arkeen haddii la doonayo wax la qabtana waa in dee kharashaadka la yareeyaa sida quraatay kharashaadka lagu yareynayna waxa weeye dee wasaaradaha faraha badan in la soo koobo marka waxaan isleeyahay madaxweynaha waa madaxweynihii malaa dadku ay ugu filitaanka badnaayeen oo ay 26 sanadood bay Soomaaliland soo luudeysay waxa la jooga xilligii Soomaaliland ay si fiican markaa u dhaqaaqi lahayd isagana nasiibkiisu ama ku nasiib daro ama ku nasiib wanaagsanaaday madaxweynahaas maanta la doortay ay hortaala inuu rumeeyo rajada shacabkuna wax fara badan bay ka filayaan dawladda xukuumadda maanta la filay inuu dhisaano waxa la doonayaa inay aad uga duwanaato xukuumadii hore loo dhisi jiray dawlad qurba jooga uu dhisaa horta waa khaladka ugu weyn u galay noqonaysaa iyo isbedel la'aanta xabaafka lagama dhowray waa taariikh bay gelaysaa 7 sano ugu dambeeyay dalkan waxaa yimid qurba joog dawladeed buu ahaa oo aan fahmi karin duruufaha dalka yaala marka waxaynu u baahannahay in horta marka hore eego dalka yaa la shaqayn kara isaga madaxweynuhu cidduu doortaa waa cidduu doonaya inuu la shaqayso marka aqoonta dalka taalla ee dhallinyarada ee waayeelka leh ee maganaysa talamaalka leh in marka hore uu eego kadibna uu soo saaro dawlad kooban oo bulshada oo dhani ay markaa u aragto inay tahay mid bulshadu raalli ku tahay markaa oo aan ahayn mid lagu raalli gelinayo beelo iyo qolo iyo deegaan iyo waxaan ahayn waxaan ka filiyay dawlad tayo leh oo kooban oo aqoon-yahan leh in aad soo dhistid baan kaa filaynaa horan waan ugu sheegaan ku haddaan aad ku hore nugu soo celisid fartayada annaka iska leh ma jirto ansixin mayno marka dawlad tayo leh oo aan wadanka joogta inama yar baa jooga qaar PhD sitaan magaalada fadhiya masjidkii oo ciida ka rag iyo dumarba dawlad tayo leh oo aqoon leh ayaan ka filaynaa dawladda waa si wanaagsan laakiin sideedaba marka laga hadlayo maareynta arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxa markasta isbarbar yaala maxaa fiican iyo maxaa suuragala waxa kale oo marka la leeyahay kooban oo tayo leh aad moodaa in aan xisaabtaba lagu darin in xukuumaddu amaba dawladnimadu sideedaba tahay matalaad iyo awood qaybsi taasi oo iyana u baahan in la dhexgeliyo labadii eray ee kooban iyo tayo leh kooban loo geeyay tayo leh loo geeyay awood qaybsi waxay la mid tahay imise wasiir shacbiga Soomaaliland anu mar walba arrintan ku celiyaa shacbiga Soomaaliland labaha kala daayaan inay fishaan xukuumad tiro yar oo tayo leh haddana beel waliba ay doonto inay ka dhex muuqato xukuumaddaasi waa laba aan isqabanayn waa laba aan la isu geyn karin waa laba aan la isku toli karin aniga waxay la tahay horta 26 sano jirnaa wax 26 sano la sugayna in la sii sugo maaha haddii madaxweyne ku dhiiran lahaa arrintan go'aanka qaadashadeedana musabix cid kaga habboon garan maayo waayo wuxuu ku kaambeyn gareeyay madaxweyne go'aan leh dee go'aankii unbaa looga fadhiyaa waa casharna wuu ku kicin doonaa insha allahu tacaala waxay naga soo noqon doonaa feedback dadka iyo shacabka waan qirsanaho in labada la isku talo xilliga kan inta halka aynu socono gaarino waan qabaa laakiin iyadoo kooban oo tayo leh ayaa haddana dadkii Soomaaliland oo dhan ka wada dhex muuqan karaan macnaheedu waxa weeyaan dee haddii beel la siin jiray intaasoo wasiir
beelahana waxaan doonayaa inay fahmaan beeshu maaha inay ku dawaqdo imise wasiir baa ku leedin xukuumadda laakiin beeshu waa inay su'aalaad adig iska weydiisaa maxay xukuumaddu u qabatay deegaanka beeshu degto taasaa inagana inoo muhiima matalan ka soo qaad tuulo yaroo cidlo ah ayaa beel yar degantay tuuladaasi biyo ma leh waddan ma leh iskuul ma leh xarun caafimaad ma leh dee arrimahaasaa uga mudan inay madaxweynaha ku culays saaraan halka ay kaga culays saarayaan yaa horta xukuumadda noo matala anu waxaan qabaa waa xilligii aynu odhan lahayn war waxaynu u baahannahay waxqabad ee uma baahnin qof iyo laba reer hebel ka tirsanoo xukuumadda dhexdeeda ku jira waxaanan qabaa wasiirada maanta lasoo magacaabaya in garaadkooda iyo hankooduba ka sarreeyo inay noqdaan dad reere matala wasiirka la geeyey xanaanada xooluhu wuxuu wasiiru yahay bulshooyinka reer miyiga ah ka la geeyey wasaaradda kalluumaysigu wuxuu wasiiru yahay bulshooyinka kalluumaysatada ah wasiirka howlaha guud wuxuu wasiiru yahay inuu hantida guud iyo wadooyinka ummadani leedahay iyo kaabayaasha dhaqaalaha wax ka qabto wasiirka dhalinyarada ciyaaruhu wuxuu wasiiru yahay dhalinyarada ciyaaraha reer maaha anu waxaan qabaa waa xilligaynu wada xisaabtami lahayn ee wada xisaabta kana la gaadhsiin lahaa halka ugu sarraysa dee go'aankii adkaa ee boodharka ku qoraabaa madaxweynaha cusub laga sugayaa wallaahi xagga wasiirada inta ugu yar ee lagama maarmaana ee qarankan hawshiisa wadaysa ayaan jecelahay inuu madaxweynuhu ka dhigo ayaan kula talin lahaa waxa weeye tiro badan oon faa'iido lahayn ma fiican in yar oo quality oo nadiifa oo isjecel oo siyaasadda madaxweynaha ku shaqaysa oo urursan oo caqli leh maaha uun in shahaadad la eego waxaad arkaysaa nin shahaadada PhD haysa oo haddana aad garashadiisa aad u saluugayso iyo inan yar oo geela la jooga oo ama beertiisa qodanayo haddana ilaahay xigmadda iyo caqliga uu siiyey aad yaabayso madaxweynaha cusub waxaan maqli jiray in badan go'aan qaadashu leeyahay musabix go'aan qaadashu ayuu leeyahay waxaan leeyahay magacaa iyo looge lagu fadhiye maanta lagaga fadhiyaa go'aankii adkaa xukuumad baahday oo musuqmaasuqa ku baahay oo qabyaaladu ku raagtay oo aad u baahday baad qabatay inaad soo ururiso oo dawlad kooban oo aad naqaysato ragga naqaysato kana si wanaagsan u ololeynaya aanad odhane aad tidhaaho yaa waxu qaban karaya somalilan waxaan soo dhaweynaya dawlad taya leh oo kooban horta reer waliba shaashadda uu ka muuqan doona reerna haddii uu siduu dee madaxweynuhu imaka yidhi reerna haddii loo dhiibo aniga reerkayga o dhan haddii wada wasiirka 70 imika dee waa baarlamaanka waxba kama yare haddii ay isleekaadaan loo dhiibo haddana qaar jibsin baa caban doonta marka waxaa la doonaya dawlad taya leh oo kooban oo qof waliba reer walba mutacalimiga laga helaya in aqoon-yahana oo qof waliba shaashadda iska arko haddii laga waayo laba ilmaa walaalaaba ilmaayari oo loogu baahday inay meesha galaan raalli baan kana muuse anagu markaan ololaha ku jirnay waxaan u iibinaynay nin go'aan qaadan kara dalka yaqaana aqoon u leh dalka xal badan wax badan oo problem ka dhacay xalkeedii keenay marka waxaan ka filaynaa horta inuu samayn karo xukuumad kooban oo ku kalsoon yahay aqoonteedii iyo garshadeediina leh waxaan ka filaynaa madaxweynaha cusub inuu hirgelin karo barnaamij kastoo uu qaatay isagu waayo arrimahaasaan ka mid ah arrimihii aanu iibinaynay marka laga reebo dee waxa buugga xisbiga ku qoran qofka shakhsiyadiisaad iibinaysa xataa muuse waa nin runtii dalka og maanta dhibaatada ka jirta oo qof u kurgalay magaranaysa wax badan oo xalina ka qayb galaatay marka waxaan kolay ognahay ama aanu dee ka wada hadalnay ama dee lagula teliyey in xukuumaddu ay maanta ka koobnato 70 wasiir aanay dalka faa'iido ugu jirin carabtu waxaad tiraahdaa mahmaah moogtahay idaa kasara tabbaakhuun fasad almaraq yani haddii distida la isugu wada imaado dee maraq la samaynayo 100 dee maxaa la kuug u imaado maraq xun baa soo baxaya taasina runtii waa taa Somaliland maanta haysatay waxay dib ugu noqonaysaa taasi sida u meel maraysaa go'aan halkudhigii xisbiga kulmiye iyo madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenkuba ku ololeeyeen ay gidaar kastood ka wareegta hargeysa ku yaalay oo ahayd dooro hogaamiye go'aan adag leh go'aan adag bay u baahan tahay arrintani oo u baahan in bulshada la raaligeliyo midda kale dawladnimadu ma aha mid reer ay leeyihiin madaxweynaha la doortay muuse dee dabcan siduu isba og yahay bulshaduna og tahay dadkuna og yihiin cidna aan loo sheegi karin wuxuu madaxweyne yahay kuwii doortay iyo kuwii aan dooran
oo ay ku jiraan kuwii xataa dee codayntaba aan kaarhkaba qaadan iyo kuwii xusbiyada kaleba ku jiray intaba madaxweynuhu yahay marka maadaama madaxweynahaasi ka dhaxeeyo dowladnimaduna way ka dhaxaysaa marka maaha kulba in la eego la idhaahda yaa madaxweynaha war haddii laba walaalii ay xil ka soo wada bixi karaan waa in bulshadu aamini kartaa in loo dhiibo labadaa walaalaha xilka bulsho waliba meel ayay wax ka bilowdaa meelna waa ay gaadhsiisaa somalilan waa ay 27 jirsatay waxaana laga hirgeliyey 6 doorasho waxaanay cagta saartay dhabada hanaanka dimuqraadiga ah ee hal qof iyo hal cod haddaba su-aasha meesha taalla waxa weeye waqti xaadirkan xukuumadda cusub ma waxay noqon doontaa mid xula mise waxay noqon doontaa mid xala waxaa midida daabkeeda haya madaxweynuhu maanta maalin uu reer eg marna waa xul marna waa xal in cigaal baa waa xal maanta xul ma doonayo waxaa loo soo dhisay guddi buu diray in cigaal marigaanu distoorka samaynaynay 79kii kolkaasaa la yidhi waxaa loo soo sameeyey dabeedna agaasimayaasha heerka uu ka qaadanayo iyo wasiirada heerka ka qaadanayo wixii oo dhan iska daadiyey buu yidhi maanta xul baa ii keenteen laakiin xul ma baahniya xal baan u baahanay tii waa la soo dhaafay maanta xul baa loo baahay horta madaxweynuhu waa in u sheegaa shacabka somalilan cidday dootele ka wakiila ee markay wax dhacaan ama wax loo baahdo loo diray inay wakiilada waxaan weli ku dhiganahay systemkii hore ee siyaad bare ee one man rule oo wasiirku wax la moodayay waxaa arkaysaa nin cararaya oo baarlamaan hooda wasiir doonaya way dhacday way dooneen way galeen wal eri kalsoonida shicibku siiyey iyo codkiina wuu khasaariyey horta marka hore madaxweynuhu ha u sheego dadka inay wakiil ka yihiin baarlamaanku iyo golaha deegaanku say u fududaato in la sameeyo dowlad yar oo wasiir ah oo isaga noqdo garbihiisa wasiir muxuu yahay waa garbaha uu ku shaqeeya madaxweynuhu dadka wakiilaba kama aha ninka wasiirka maaliyadda wuxuu wasiir maaliyu yahay daraf ilaa daraf inuu dadka soo saaro dhaqaalaha soo saaro beel iyo in ku noqdo oo ka shaqeeya beelo loo sameyn beelahan waxaa loo sameeyey oo la doonayo shicibku inay fahmaan wakiilka soo diratay ee soo doortay codka sida ka wakiila kad u diraysa madaxweynaha ee dhibaatada deegaanka ka wakiilka ee madaxweynuhu tagayo waa baarlamaanka weey waxa leeyahay madaxweynuhu ha u sheego hadduu sameeyo dowlad yar dadka ka dhaadhiciyo hana support gareeyo oo ha isticmaalo wakiilada iyo qodobada baarlamaanka ha isticmaalo markuu mashaakil markuu wax ka baahdo deegaanadoodii ama deegaanku wax ka baahdaan xukuumadda ha update gareeyo oo kuwa ha isticmaalo oo ha yiraahdo waxa doorateen baarlamaan waxa doorateen golaha deegaan oo iska wakiila horta kuwa waxa la siiyay awood waxaana kula talin lahaa baarlamaanka waa nin baarlamaan oo doonay wasiir cod umadeed baa habis cod ku fadhida umad baa codkaaga ku siisay maanta wasiir noqoto dadka codkoodii wax ku dhacay macdala dawladdan waxaan jeclahay inay noqoto dawlad xula waayo xalkii wuu inaga dhammaaday waxaynu joognaa iminka 27 sannadood waxa wanaagsan oon anigu kula talin lahaa madaxweynaha anoo og madaxweynuhu inuu yahay nin aad u fiiro dheer waayo aragnimo badan leh garasho badan isla markaasina talooyin badan oo qiimo badan qaatay haddana kama waadin ahaan waxaan anigu ku talinayaa inuu madaxweynuhu uu eego shakhsiyaad nadiifa oo shaarcadayaala oo aan shaarmadooba ahayn kow dad dalkan iyo dadkan u turaya naxariis badan oo aan lahayn dad dhuunmaala aan ahayn laakiin garasho maal dadka u naxa oo islaama inuu horta ku soo daraan leeyahay marka anigu runtii waxaan oran lahaa maadaama Soomaaliland maanta ay tahay dawlad ictiraaf raadinaysa maanta waxa weeyaan xilligii aqoonta يعني إن ما أنت اللي راهدو هبل وحوك سورد مي جامعة هبل PhD كاسو ستة هبل باتشر كاسو ستة هبل لغة داسو يقانا إن بس كيدو نقطة سوماليلاند وردن نوي كوكان عيسى أو دي ما أنت يعني وحا بدن ودن كان ما أنت وردنيرو مركا تانا دنيردنا إن لغو قنعيو inta reerar la qancinayo ayaan anigu taas soo jeedin lahaa qofka la magacaabo in taariikhdiisa hororta la eega ma aha qof shaqooyinka hore soo qabtay ku soo guuleystay ma aha qof amaano lahaa ma aha shaqooyinka hore loo dhiibay nin ilaaliyay ma aha qof shaqadii bariga waqtigeedii hore uu qaban jiray xilligeedu ku qaban jiray waayo ma doonayno maalin naga lunto minidinu naga lumo
waxaa la doonayaa rag ay u qorshaysan tahay maalintuu wiigu u qorshaysan yahay bishu u qorshaysan tahay sanadku u qorshaysan tahay oo weliba doonaya inay saacado fara badan ummaddan geliyaan si ummaddani noloshan hoosaysa ay ugu nololka wanaagsan ay ugu noolaato. badiba bulshada ku dhaqan Somaliland ama dibad ha joogto ama gudaha joogtee ayaa madaxweynaha cusub mudane Biixi iyo ku-xigeenkiisa mudane Saylici waxa ay ka sugayaan xukuumad iyo maamul saldhigiisu yahay cadaalad, sinaan, horumar iyo inay fuliso ballanqaadadii ay waqtigii ololaha lagu jiray ay ummadda u ballan qaaday inay samayn doonaan samo iyo barwaaqo dadka iyo dalkaba wada gaadha. ugu dambeyn waxay hambalyo iyo ducaba u hibeeyeen madaxweynaha dhawaanta la doortay iyo ku-xigeenkiisa mudane Muuse Biixi Cabdi iyo mudane Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyaga oo u soo jeediyay talooyin wax ku ool ah oo dhaxalgal u ah qarankan Jamhuuriyadda Somaliland. waxaan ka helay khudbad uu jeediyey ilaahay khayr ha siiyee aadan siiro jimcahay dhaweyto khudbadda haddii uu Muuse Biixi raaco khudbadda uu aadan siiro hadduu raaco yacni wuxuu noqonayaa Cumar bin Khadaab. waxaan leeyahay talooyinka wanaagsan raac talooyinka xun raacin Muuse talooyinka wanaagsan raac Somaliland halka ay joogto maanta wax ka bedelan keenoo isu keen dadku waa wuxuu meegayn dawladda soo lisay meegaysaan haddii soo lisay qaar si ku taagnaan jiray madaxtooyada ee markay todobada ka soo galaan ilaa 12 halka taagnaan jiray dee adigu baa markaa farta dhexe ka qaniin laakiin haddii dawlad soo lisay tayale in yaro xafiiskiisa ku soo kala oo dhiijiga la xisaabtama oo shaqaaluhu eegtaan way haddii shaqaaluhu arki waayeen wasiirkoodii oo fadhiyo nool ka tagay haddii aad ku dhis weydii adigu baa farta dhexe ka qaniin. madaxweynaha la doortay ilaahay madaxweyne wanaagsan ha inooga dhigo wax badan baa laga filayaa ilaahay waxaan ka rajaynayaa Somaliland in kan ilaahay uga dhigo madaxweyne wanaagsan dadka ilaahay uu bedelaa in qof wanaagsanaa markuu madax noqdo xumaada qof marka hore xumaaba markuu madax noqdo wanaagsanaada ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu ilaahay inoo wanaajiyo shacbiga waxaan leeyahay haddii madaxweynahaas uu noqdo madaxweyne dadaalaya oo baahiyaheena iyo mashaakilaadka faraha badan ee haysta wax ka qabanaya aynu bal mar uun qabyaalada soo eegna muran soo eegna reer hebel soo eegna xaafada soo eegna bal mar aynu gamcaha isu qabsano inaynu dawladda la shaqeyno gamcaha is qabsano isagana waxaynu ka filaynaa aynu ku ilaalino hadduu waxa inoo qabanayo aragnay isagoo dadaalkiisa aan ku garab gallo iskaa wuxuu qabsada iyo dal dhiska iyo wanaajinta iyo dad midaynta aan ka shaqeyno madaxweynaha iyo xukuumadda soo dhis doona waxaan leeyahay war ummadda Somaliland way soo samreen xilliya adag bay u soo dul qaateen inta in ka badan ma dul qaadan karayaan ama riyooyinkooda rumeeya anu waxaan qabaa haddii kale in rugmad noqonayso dadku quus bay taagan yihiin waa in loo shaqeeyaa waxa la soo gaaray xilligii dadka aan laga shaqaysan lahayn loo shaqeyn lahaa kuwa ka shaqaystana waxaan leeyahay sahan ugu dhaafaan kuwa imanayna waxaan leenahay ha ku soo talagelina oo ay shacbigu uma dul qaadan karayaan musuq iyo boob uma dul qaadan karayaan. xukuumadda uu madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu soo dhisi doono waxaan kula talin lahaa oo aan ku rajo weynahay weliba isagoo laftiisa uu ka mid yahay ragga maaragtay muxuu ahaayey muddada dheer halkan iyo dawlad dhisid baa 30 sano u dambeeyay ku soo jiray inuu cid uga khibrad badan aanay jirin maamul dhisida laakiinse mar walba dadka haddii aan carabaabo waxa weeye dawlad tayo leh oo muxuu ahaayey aqoonteedii iyo muxuu ahaayey waxgaradkeygiiba le inuu soo diyaariyo dadka badankoogu maanta waxaan malaynayaa inuu madaxweynuhu Muuse Biixi Cabdi wuxuu madaxweyne noqday maanta reer Somaliland oo dhan bari ilaa galbeed waxa weeye xisbi mucaarad iyo xisbi muxaafidaba maanta iyo gabadha miyiga joogtay suuqa joogtaba isaga maanta madaxweyne ah waxaan oran lahaa muxuu ahaayey dadku muxuu ahaayey xil looma wada magacaabi karo inta uu madaxweynuhu uu garto in ilaahay u calfo in inta kalena ay u hanayso ayaan soo jeedin lahaa aad iyo aad baan isagana aan muxuu ahaayey ugu ducaynaya inuu ilaahay hawsha adaga hortaala dhibaatooyin way jiraan laakiin kolba muxuu ahaayey kolba waxba laga baxayay laakiinse maanta dhibtii jirtay amba ha ahaato
aqoon hamba ahaato sixir amba ahaato muxuu ahaye wax kale wixii kasta dhiman insha Allah waxaan rajo weynaa in muuse ugu xoogaa badan inaan jirin isana insha Allah ilaahay ducaynayno ilaahay soo fudeeyo runtii waxaan maanta ku talin lahaa in dawladdan cusub dhalan doonta mudane Muuse Biixi Cabdi uu beeskeeda uu ka dhigo aqoonta number 1 oo ay noqoto dawlad xulasho leh oo qof walba yani right person right place loo doorto waynu codaynay sinabaanu codaynay iyo waxaan leeyahay nabadiina meel aanay jirin nabadi ama ammaan shiri maayo horumar waxaan shacabka gaarsiinayaa shicibow ninka u codayseen ugu midaan codayn in uu xil idin siiyo waxa ugu codayseen in waddanka horumar gaarsiiyo haddii nin waloo codayn yidhaahdo maxaa xil laga siin waayey doorta madaxaan isla gelayna oo qof walba uu xil doono taas waa mid isna waxaan leeyahay madaxweyne waxaan leeyahay beelihii aad kaa codeeyey madaxweyne u tahay iyagu ha ogaadeen in kursiga loo bartaamayay oo ahaa ana kaa fiican iyo ana kaa fiican madaxweyne waxaan leeyahay beelaha waa inuu soo dhaweeyaa waa inay ka muuqdaan maamulkiisa si rasmi uga muuqdaan waa inuu tusaa inuu yahay madaxweynihii qaranka ee hogaaminayay shina waxaan leeyahay ammaankiina hagaajiya waa codayseen mustaqbalkana waxaan insha Allah rajaynayaa doorasho ka hufan oo aan daadgorayn lahayn oo kharash badan lahayn oo ninku ka codayn karo halka uu joogo in aynu gaarno mustaqbalka dhow isaguna maantaba waa inuu saaraa guddi rasmi ah oo qaabkii doorasho soo socotay wakiilada iyo deegaanka oo saaran qaabkii loo fulin lahaa maanta waa inuu sameeyaa guddi rasmi ah oo ka sii shaqeysa iyo qaabkii halka xanibadu ka taagantay waxa weeye waa saami qaybsigan xagga golaha wakiilada taas oo caqabad dheer soo jiidatay taas oo caqabada ay keeneen golihii wakiilada birgi aan ku jiraan anagu ay keeneen oo ay ka codeeyeen ahayd in laga saaro dastuurka oo lagu qoro meel gooniya oo xeer lagu qoro oo ku jira dastuurka oo editoyo oo aan la taaban karin iyo dastuurka la furo mooyaane taan waxaan leeyahay iminkaas madaxweynuhu ka sii fakiro cidna haw sameeyo ka shaqeysa waxaan leeyahay shicibku waxaan rajaynayaa nabadgeliyo iyo sanadkiisa insha Allah inuu gaarno ictiraaf iyo guul waxaan idin bariyaa ilaahay inuu barwaaqo iyo bashbash inagu roonaado daawadayaal barnaamijkeennii aynu ku falanqaynaynay xukuumadda cusub ee uu soo dhisayo madaxweynaha dhawaanta loo doortay hogaaminta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland 5 sanadood ee soo socda oo tabcan bulshada qaybaheeda kala duwan ay ka qayb qaadanayeen intaasi ayaanu ku soo gabagabaynaynaa waxaan aad ugu mahad celinayaa farsamayaqaanada barnaamijka isku hawlay isla markaasina waqtiga galiyay xagga kamarada Jimcaale Cali Safa Jaamac iyo Maxamed Deeq Axmed Cali oo farsamada inaga caawinayay aniga oo Nimco Cabdigoola oo barnaamijkan idin soo saarayna waxaan si ballaaran ugu mahad celinayaa guud ahaanba bulshadii ka qayb qaadatay iyo intii farsamaysay iyo intiina daawanaysa waxaan idin leenahay daawadayaal tan iyo kulan dambe oo xiiso leh intaynu isugu imanayno barnaamijkan lamida sidaas iyo nabad geliyo Sociedade nabada